marka koobaad soo dhaweynta iyo ina xisbiga ku soo biirteen oo u soo digargoteen oo u soo guurteen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa ku mahadsantihiin waa ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu leenahay la'aantiin guusha lama gaadheen guusha garabka nala qabta aniguna gaar ahaan abibakar oo gudoomiye ku xigeen u sharaxan aniguna aan gudoomiye u sharaxanahay deegaankan iyo beeshan isku bili baanu ahaynoo shalayna saylic iyo silaanya wada sharaxnaa waxaan rajaynayaa inaanu labadeeduna guulaysan doono labada musharaxna guul gaadhsiin doono insha allahu tacaala aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa qayb ka ahay oo joogo waxaan leeyahay isku bili baynu ahayno insha allahu tacaala waynu guulaysan doonaa waanaynu gaadhsiin doonaa musharaxiinta kuraasta iyo dalka taladiisa waynu gaadhsiin doonaa reerkanna waxaa lagu yaqaanaa iyo deegaankanna waxaa lagu yaqaanaa isku duubni iyo ficil iyo karti waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay hormuud ka noqdaan oo ay xisbiga waxa weeye ololihiisa iyo geedigiisa ugu jiro inuu talada dalka ku hanto ay horta ka galaan guud ahaanna reer awdal waxaan leeyahay reer awdaloo waa aragteen xukuumaddii kulmiye ee muuse hogaaminayey waa aragteen maanta waxaynu doonaynaa insha allahu tacaala inaynu isbeddel khayr qaba oo labadaa xubnood idin hor jooga cabdiraxmaan iyo maxamed aynu gaadhsiino insha allahu tacaala waxaa ka hanan doontaan oo ka heli doontaan isbeddel khayr qaba insha allahu tacaala idin odhan mayno baddaannu macaanaynaynaa laakiinse waxa aad doonaysaan wixii suurtagala ee aanu ka awoodno waxba laydinka agran maayo waa laydiin dadaalayaa waa laydiin dhaganuglaanayaa waxaa xaqa u leedihiin baa helaysaan insha allahu tacaala haddii ay suurtoobi weydo oo ay innaba tabasha ka timaadana annaguna waannu idin barbar taagannahayo raggii lahaa yaanaan idin waayin haddaa iyaga weydaan annagana waayi maysaan insha allahu tacaala aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa aad iyo aad baan idiin soo dhawaynayaa waxaan leeyahay insha allahu tacaala guulaysta waynu guulaysanaynaaye dhexda u xidha